arrimaha dibadda caalamka oo dhan cid walba jaarkeena iyo gudfowga nabad iyo iskaashi iyo isqadari baan ugu baaqayna qolada wax naga dhexeeyaan maanta oo aad aynu isugu qasanahay arrinteedu aad u kala fog tahay waa Soomaaliya dowladda xamar ka talisa saddex qodob ma u sheegaynaa oo qof walba Soomaaliland halkaa gooska ku qabsanaya walaalada dad waa isku xignaa isku afbaynu nahay isku diin baynu nahay isku dhaqan baynu nahay dad walba Soomaaliya isku xigta ma diidanin markii shanta la asaasay anaga ugu horeeyay Hargeysa laga asaasay nin walba waa marxaati lama diidayo odayaashii asaasay xoogooda iyo caqligooda iyo maalkooda ku bixiyay waa abayaashii awliyaashu toodi baan jecelahay inaan raaco lixdankii baynu midowday bishii July inagoo laba dowladood oo siman oo caalamka ka tirsan soddon sano inuu mid ahay way inaga duntay 1990kii oo waa lagu kala tegay imika geli maaya eedda duminta lahaa geli maaya way inaga duntay qolada Soomaaliya waday qaadatay waday wax u dhisatay federaal bay qaadatay gobollo madaxweynayaal ay samaysatay baarlamaan baa wuxuu doortaa inaguna wada kale aynu qaadanay koob iyo sagaashii baynu heshiinay wixii dagaal dhex maray waxaanu ka noqonnay xaleynay baarlamaan baynu dhisanay doorasho cod baynu galnay republic baynu qaaday jamhuuri iyagu federaal bay qaateen systemkooda iyo maamulkooda iyo siyaasadda weligeed saddex sano waa iman caalamku saa u dhacday baa wuxuu ictiraafay tii koonfurta teeni caalamku ictiraafay walaaladeen Soomaaliya waxaanu ka filaynay oo ay gartu ahayd inay iyagu runta koosh ay bilaabaan ilaa laba dowladood soo baan wahay imkana la wada kala qaadanay hadaan ictiraafta walaalayaal ictiraafkooda siiya annaga heshiin doonay laakiin way ka qaldantay rag halka jooga maanta waxaad moodaa inay qirsaneen inuu laba dowladood oo 60kii soo wahay waxaad moodaa inaanay aqoonsaneyn soddonka sano inuu laba wada kala marnaa iyagoo federaal iyo madaxweynaha iyagoo jamhuurina waxay u leeyeen inay qoro walba distoor gaar ah samaysato oo ay u codosay oo ay ku qasban tahay waliba distoorkeena 1999kii uu dadkoo dhan u codeeyay oo wuxuu ku fadhiyaa distoorku codka ummadda dadka ay matalan madaxweynaha ee baarlamaan leh ee noloshiga dowladda hoose cod bay ku fadhiyaan iyaga madaxweynaha baarlamaan baa doorta 500 meel u xiray baa doorta distoorkooda ay ku leeyeen waa muqaddas mabay u codeen ciidan iyaga isku ogola waa yaabay ee waliba ay doonayaan u sheegtaan xagee ka qalday waxaan ugu sheegayaa war waxa gartu waa cadahay walaalayaal arintana waa arkaysaa ragga maanta talada haya waxyaalaha qaarkood ee birigada ku dhacaya eelankii salaama cilaaqaadka u jiray tulas cudurna maxay u jiri waayeen garan maayo waxa dhaafaan iyaga waxaan leenahay waxa aan wadaa waa wixii Soomaali boqol sano ku kala fogaanaysay caqli hala keeno labadii dowladood xiriirkiisu bay ku hadlayna nabad iyo walaalatinimo wada hadal iyo kala garan baan doonaynaa waxaan aad wax soconaya ma gartuna waa cadahay ilaahay ka taqaanaa inta ku gulmay aad iyo aad u maatay